warka madaxdiisii ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Margeele. golaha doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in ka badan 60 milyan oo qof ay isku diiwaan geliyeen codbixinta doorashooyinka lixaad ee qaranka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر دوادا وركي تلفزيون كقرنكا إثيوبيا halkan waa ETV magacaygu waa Nasruddin warkii oo dhameystiran. Ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Margeele kaasi oo markii shanaad ku guuleystay doorashooyinka madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacay bishii la soo dhaafay. munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxa ka kala socotay dalalka Afrika waxaana madaxweyne Geele oo markii shanaad ku guuleystay doorashooyinkii qaran ee dalkaasi ka dhacay. ciidanka iyo shacabka Shiinaha ayaa ugu deeqay agabka talaalka COVID-19 iyo lacago ciidanka difaaca qaranka Itoobiya soo ku waramayo wariyahayaga Xamdi Maxamuud. ciidanka shacabka Shiinaha ayaa guddoonsiiyay talaalka COVID-19 ee looga hortagayo fayraska corona ciidanka difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya. danjiraha Shiinaha u fadhiya dalkan Itoobiya Zhao Juhan oo ka hadlay madashaasi lagu wareejinayay talaalkani taageerada ah ayaa sheegay in ciidanka shacabka Shiinuhu uu ka soo gudbay imtixaano fara badan tan iyo bilowgii safmarka fayraska corona. waxaana tilmaamay in talaalkani ciidanka difaaca qaranka Itoobiya ka caawin doono samatabaxa COVID-19. The China PLA-aided vaccines will surely help protect. danjiraha ayaa xusay in talaalkani COVID-19 ee ciidanka shacabka Shiinuhu ugu deeqay ciidanka difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya uu yahay mid faa'iido ballaaran u leh badqabka caafimaadka ee ciidanka. isla mar ahaantaana waqtigani lagu guda jiro oo ah mid aad u adag oo lala tacaalayo fayraska corona ay labada ciidan iska caawinayaan waxyaalaha kale ka hortagga fayraska corona uu ka mid yahay. To Ethiopian Defense Forces. sidoo kale danjiraha waddanka Shiinaha u fadhiya dalkan Itoobiya ayaa sheegay in ciidanka shacabka Shiinaha ay iskala kaashanayaan ciidanka difaaca qaranka Itoobiya hirgelinta hospitaal casri ah oo ku qalabaysan teknoolojiyad casri ah isla markaana ciidamada labada wadan ay sii xoojin doonaan xiriirkooda iyagoo gaari doona heshiisyo iyo iskaashiyo heer caalami ah. The China-Ethiopia military cooperation enjoys broad prospects. danjiraha ayaa carabka ku adkeeyay in xiriirka ciidamada Itoobiya iyo Shiinuhu ay yihiin kuwa aad u sareeya isla markaana hogaaminta labada wadan ay gaadheen heshiisyo dhinaca wada shaqaynta ciidamada iyadoo la sii xoojin doono istiraatiijiyadaha labada ciidan. Cooperative partnership in a new era. dhankiisa wasiirka wasaaradda difaaca ee dalkan Itoobiya Qanna Yidhata ayaa sheegay in wadamada Itoobiya iyo Shiinuhu ay leeyihiin xiriir walaaltinimo oo qoto dheer isla markaana ay yihiin kuwa soo bilaabay iskaashigooda muddaha laga joogo 50 sano kasakow xiriirka dhaqaalana ay jiraan iskaashi xoogan oo dhinaca ciidamada labada wadana. wasaare yaadaraguulin tababbar dhanka kale wasiirka difaaca ee dalkan Itoobiya ayaa waddanka Shiinaha uga mahad celiyay taageeridda go'aanka lagu sugayo amniga dalkan Itoobiya ee waqti xaadirkan. wasiirka ayaa magaciisa iyo kan ciidanka difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya ugu mahad celiyay dalalka Shiinaha iyo Ruushka oo ku tilmaamay inay taageereen go'aankii dawladda Itoobiya ay qaadatay ee lagu sugayay jiritaanka waddanka. China እና ሩሲያ ስለዚህ በዚያ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ከመጠበቃቸው አንፃር በእውነቱ ከሆነ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። ugu dambeyntii waxaa ciidamada Itoobiya iyo Shiinuhu kala saxiixdeen kasakow talaalka fayraska corona lagaga hortagayo taageero lacageed oo loogu deeqay ciidanka difaaca qaranka. wahagaag dawladda Shiinaha oo kaashanaysa shirkadaha Shiinaha ee ka howlgala deegaanka Amxaarada ayaa waxa ay gaarsiiyeen deegaankaasi agabyo isku jira qalabka caafimaadka. mar kale Xamdi Maxamuud ayaa inoo soo jeedinaya warbixin la xiriirta warkan.
dowladda Shiinaha oo kala kaashanaysa shirkadda China Chamber ayaa deeq isugu jirta agabyada kala duwan ee caafimaadka iyo tallaalka lagaga hortagayo fayraska corona ugu deeqday deegaanka Axmaarada. Deeqdaasi agabyada caafimaad ayaa waxaa ka mid ahaa 255,000 oo afdabool ah ama face maskiga, qalabka bukaanka ka caawiya neefqabatowga ee loo yaqaano oksijiinta iyo midka lagula socdo xaaladda bukaanka. Deeqdaasi ayaa waxaa deegaanka Axmaarada ku wareejisay Konmina Nada oo ah la taliyaha danjiraha waddanka Shiinaha u fadhiya dalkan Itoobiya. Waxayna sheegtay inuu dalka Shiinuhu uu ahaa dalkii ugu horreeyay ee Itoobiya ka taageera la dagaalanka fayraska corona tan iyo intuu safmarku dilaacay. waqti xaadirkanna waddanka Shiinuhu uu door laxaad leh ka qaadanayo sidii Itoobiya u xakameyn lahayd fayraska COVID-19. Today, by taking this opportunity, la taliyaha danjiraha Shiinaha ayaa sheegtay in deegaanka Axmaarada ay ku yaaliin kambaniyo badan oo laga leeyahay dalka Shiinaha isla markaana ay door weyn ka qaateen deeqdani. Waxayna tilmaantay in iskaashi lagu cirib tiri karo fayraska corona. Deeqdanina ay deegaanka Axmaarada u leedahay faa'iido maadaama uu deegaanka Axmaarada uu ka mid yahay deegaanada ugu tirada badan ee dadka dalku ay ku nool yihiin. Madashaasi deeqda lagu wareejinayay ayaa waxa ku sugnaa madaxweynaha deegaanka Axmaarada Aganyow Tashaagar, waxaana mahadnaq ballaaran u soo jeediyay deeqdani loogu deeqay deegaanka Axmaarada. Waxaana tilmaamay inay mudan tahay in la iska kaashado sidii loo xakameyn lahaa safmarka COVID-19. I am happy for this support for the people of the China's business community. madaxweyne Aganyow Tashaagar ayaa sidoo kale maalqabeennada Shiinaha ugu baaqay inay deegaanka Axmaarada soo maalgashadaan maadaama uu yidhi deegaanka Axmaaradu uu yahay mid nabdoon dhinaca amniga oo la isku halayn karo fursadaha maalgashi ee deegaankaasina ay yihiin kuwa sallaxan. Amhara region is a very peaceful region. deeqdani loogu deeqay deegaanka Axmaarada ayaa waxa ku baxay adduun lacageed oo kor u dhaafaya 23 milyan oo bir. wali waxaad daawanaysaan warkii ETV markana deegaanka Sidaama. shacabka ku nool degmada Arooreysa ee deegaanka Sidaama ayaa cabasho ka muujiyay wadooyin la'aanta ka jirta degmadaasi. wariyahayaga Cabdullaahi Rabi ayaa faala la xidhiidhay warka noo soo jeedinay. bulshada ku nool degmada Arooreysa oo ka tirsan deegaanka Sidaama ayaa sheegay in dhibaatooyinka dhinaca jidadka ka jira ay caqabad ku noqdeen geynta suuqa ee wax soo saaradooda kala duwan isla markaana ay ciriiri gelisay noloshooda bulsheed. haddaba madaxweynaha deegaankaasi mudane Desta Ledamo oo booqasho ku maraya mashaariicda deegaankaasi ka socda gaar ahaan kuwa degmada Arooreysa ayaa sheegay in dhibaatooyinkaasi ay bulshadu sheegatay ay yihiin kuwa jira oo dawladda deegaanku ay dadaal ugu jirto sidii wax looga qaban lahaa. wuxuu madaxweynuhu sheegay in degmada Arooreysa iyo degmooyinka kale ee deegaankaasi Sidaama ka tirsan dhibaatooyinka ka jira dhinaca jidadka si xal looga gooyo inay socdaan 48 mashruuc oo lagu dhisayo wadooyinka jayga ah oo hawshaasina ay noqon doonto mid wax ka qabata dhibaatooyinkaasi dhinaca wadooyinka ee bulshada haysta. waxaa degmada Arooreysa ee ka tirsan deegaankaasi Sidaama uu hodan ku yahay wax soo saarka dhinaca bunka, insadka, galeyda, sisinta iyo digirta iyo wixii kale soo raaca. haddaba waxay bulshada goobtaasi ku nool oo ETV la hadlashay waxay sheegeen in dhulkaasoo dhul foorara dhibaatooyinka jidadkoo lagu daray ay aad u adkaysay siday wax soo saarkooda beeraha suuqa u geyn lahaayeen oo taasi qasab kaga dhigtay inay wax soo saarkooda iyagoo tunka ku qaadaya ay suuqa geeyaan. waxaa kaloo sheegeen in jid la'aantaasi ay ku hayso dhibaatooyin kaloo dhinaca bulshada oo noloshooda ay aad u adkaysay oo marka ay ku faraxsan yihiin dadaalka ay dowladda deegaankaasi wado si dhibaatooyinkaasi loo xalliyo. markana magaalada Jigjiga wararka nooga imanaya booliska bariga dalka ayaa loo qabtay tababar lagu kobcinayo awoodooda fulinta ee doorashooyinka. tababarkan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida. warkana waxaanu keenay wakaalada warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida. tababarkan oo ay soo agaasimeen jaamacadda booliska federaalka guddiga doorashooyinka dalka iyo xarunta midowga Yurub u qaabilsan doorashooyinka oo iskaashanaya ayaa ujeedadiisu ay sidii boolisku ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen qaabkii doorashada lixaad ee dalku ay ugu qabsoomi lahayd hab nabadgelyo oo xor iyo cadaalad ah. waxaana daafurka tababarkan oo ka qabsoomay magaalada Jigjiga ka soo qayb galay komishineerka komishanka booliska deegaanka Soomaalida iyo madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda booliska federaalka kuwaas oo sheegay in tababarkani qayb ka yahay tababaro booliska la siinayo oo ka socda deegaanada dalka xilligan ay dalka ku soo food leedahay doorashada lixaad oo gebi ahaanba ka duwan doorashooyinkii hore ee dalka ka qabsoomi jiray. komishineerka komishanka booliska deegaanka Soomaalida ayaa xubnaha tababarkani qaadanaya kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan muddada uu tababarkani socdo si ay kor ugu qaadaan fahamka shaqooyinka booliska looga baahan yahay inuu ka qaato doorashada soo fooda leh. tababarkani wuxuu ku saabsan yahay doorka booliska kaga aadan yahay nidaamka ilaalinta doorashooyinka iyo badqabka shaqaalaha iyo qalabka doorashooyinka isla markaana anshaxa looga baahan yahay boolisnimo xilliga doorashada maxay tahay
sababaha loogu baaday iyo rabitaanka loogu baaday waxaa weeyaan ciidanka booliskii siduu u ilaalin lahaa goob doorashooyinka shaqaalaha iyo doorashadani si ay xor iyo xalaal ugu dhacdo weeyaan muhiimadda koowaad ee xoogga la saaraya waxaa weeyaan waa nabadgelyada doorashada weeyaan xubinka booliskana waxaa looga baahan yahay inuu ogaado waxyaabaha ka mamnuuca meeshaas iyo waxaan looga baahan yahay isaga inuu la yimaado meesha goobta doorashada sidaa laaligeed waxaan igula dardaarmayaa inta ay socoto tababarkan u socdo inaad si fiican waxbarashada u qaadataan oo anshax ku dheehan yahay waayo waa lagama maarmaan inaad heshaan shuruucdii iyo nidaamkii aad hadhow beri ka maalin aad la tegi lahaydeen goobaha ay doorashadu ka dhacayso dhankiisana madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda booliska federaalka ayaa tilmaamay in ujeeddada ugu muhiimsan ee tababarkani laga leeyahay ay tahay sidii booliska federaalka iyo kan deegaanada dalku ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen habkii ay nabadgelyo ugu qabsoomi lahayd doorashada dalka kusoo wajahan እኛ ዓላማው ሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በምታካሂደው ፍትሃዊ ገለልተኛ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የፌዴራል ፖሊስና የሶማሌ ብሔራዊ ክልል ፖሊስ እንደዚሁም አጠቃላይ የኢትዮጵያ ፖሊስ ujeedada tababarkani ayaa ah in booliska federaalka iyo booliska dawlad deegaanka Soomaalidu ay qaybtooda ka qaataan doorashadii ugu horeysay ee ku salaysan cadaalad iyo xornimo ee dalkeena ka qabsanta taasi oo ah doorashadan inagu soo foodalay tababarkan ayaa ku salaysnaan doona qaabka ay boolisku u sugi lahaayeen ammaanka goobaha doorashada iyo guud ahaanba doorashadu qaabka ay u kala socon lahayd talabaad ayaa ah in la baro sharciyo khuseeya arrimaha doorashada si tallaabooyin walba ay boolisku qaadayaan ay u noqdaan kuwo la jaan qaadi kara arrimaha caalamka maalintani maanta ah guud ahaan mas'uuliyiinta booliska ee dalku waxay ku sugan yihiin ama ku guda jiraan tababarkani oo kale tan aynu iskugu nimadeena waa tababarkaasi oo kale isku soo wadaduuba tababarkani booliska la siinaya ayaa ku soo aadaya xilli uu diyaargarow ballaaran loogu jiro doorashada lixaad ee dalka islamarkaana ay lagama maarmaan tahay sidii boolisku ay fahan dheeraad ugu yeelan lahaayeen xaqiijinta habsamayn socodka doorashada ee dhowaan dalka ka qabsoomi doonta taasoo lagu rajawan yahay inay noqoto mid gebi ahaanba ka duwan doorashooyinkii hore ee dalka ka dhici jiray islamarkaana u qabsoonta hab nabadgelyo oo cadaalad ah waa hagaag golaha doorashooyinka qaranka Itoobiya ayaa sheegay in ka badan 36 milyan oo qof ay isku diiwaan geliyeen codbixinta doorashooyinka lixaad ee dalka ka qabsoomaya dhawaan wariyahayga maxamed maxamuud ayaa noo soo koobay hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay ugu baaqday in dalka barwaaqo sooranku ay door weyn ka qaataan sidii wax looga qaban lahaa saameynta xanuunka safmarka COVID-19 ee heer caalami waxaana soo kale hay'adda caafimaadka adduunka gaar ahaan agaasimaha guud hay'adda caafimaadka adduunka Dr. Tedros Adhanom ayaa ugu baaqay inay dalka barwaaqo sooranku ay door weyn ka qaataan si loo taageeri lahaa dalalka dhaqaalahoodu yahay iyo dalalka saboolka si loo gaarsiin lahaa talaalka xanuunka safmarka COVID-19 waxaa sidoo kale warbixinta ka soo baxday hay'adda caafimaadka adduunku ay ugu baaqday in ay dalalka iyo beesha caalamka iyo waliba cilmi baarayaasha kala duwan ay ka fiirsadaan talaalka carruurta da'doodu yaryar tahay la siinayo waxaana cabsi weyn ay ku haysaa caalamka oo dhan xanuunka safmarka COVID-19 kadib markii xalay la soo saaray warbixin ku saabsan in uu ku yaraaday talaalka COVID-19 ee dalkaasi Hindiya loo qaybinayo arrintaasina saameyn iyo warwar weyn ay ku keentay hay'adda caafimaadka adduunka si wax looga qabto xanuunka safmarka COVID-19 guud ahaan warbixinta ka soo baxday hay'adda caafimaadka adduunka ayaa ku baaqaysa in ay shacabku taxadarka ay sameeyaan iyo afdaboolka ay isticmaalaan iyo waliba kala fogaanshaha inay ku adkaystaan qorshahaasi oo kaliya uu yahay in caafimaadka caalamka lagu ilaalin karayo wagaag waxaan idinka raali gelinaynaa warkaas oo isdulmaray warkaasi waxa ku saabsanaa hay'adda caafimaadka adduunka oo ugu baaqday hay'adaha wadamada barwaaqo sooranka talaalka COVID-19 ay u bilaabeen carruurta da'doodu ka hooseysa 10 jir oo ay ka fiirsadaan talaalkaasi ay qaadanayaan carruurtaasi isla markan jigjigaan ku laabanay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada jigjiga ee munaasabada ciidda awgeed ayaa waxa ay ku dalxiisayaan burta Karamardho ah buur ku haboon goob dalxiis warkan waxaanu ka helnay wakaalada warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida burta Karamardho ayaa goob la taariikh weyn iyadoo marka taariikhda dib loo raaco si weyn loogu xasuusto halgankii shacabka Soomaaliyeed inta waxa dheer inay qayb ka qaadato dalxiiska iyo damaashaadka munaasabadaha waaweyn sida Ciidul Fidriga sanadkan 1442 tirsiga taariikhda Islaamka
buurta silsilada ah ee kaaraamardha waxay ka mid tahay buuraha ugu caansan deegaanka soomaalida uguna facaya taariikhda weyn waana buur buuraha kale kaga duwan dhowaanta ay u jirta caasimada deegaanka ee magaalada jigjiga masaafo dhan 8 kilomitir oo keliya dhanka galbeed waa buur dabiici ah oo aad u qurxoon indhuhuna ay ku doogsadaan marka la joogo xilliyada guga oo ay goobtu cagaaran tahay waxaa buurtani dalxiis ahaan u soo booqda oo bulsho aad u tiro badan oo ka imaanaya magaalada jigjiga iyo gobolada kale ee deegaanka maanta waa maalinta labaad ee ciidul fidriga waxaa buurtan soo booqday bulsho aad u tiran badan waxayna sidaad arkaysaanba ku qaadanayaan waqti aad u degan waxaana dusha sare ee buurtani laga hirgeliyey qaar ka mid ah agabyada kala duwan ee carruurta ku madadaalooto qaar ka mid a bulshada goobtan usoo dalxiiska iyo nasashada tegay ayaa noo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin imaanshaha buurta kaaramarna iyagoo dhanka kalena maalgashadayaasha deegaanka iyo laamaha kale ay qusayso ka codsaday in buurta lagu sameeyo maalgashi si ay u noqoto goob dalxiiska ku wanaagsan xagga waxaan kasoo doonay dalxiis aan u imaadnay inkastoo magaalo jigjiga ay dalxiis lahayn oo hadda loo sameeyay aad aan ugu faraxsannahay waad arkaysaa bulshada si oo dhan tahay xaggan soo wada booqdeen inay ku dalxiis tagaan aad aan ugu faraxsannahay xaggan loona sameeyo oon dalxiis ugu imaadno waxaan leeyahay in aad loo sii ballaariyo goobo badan loo sii sameeyo inkastoo hadda la bilaabay bilow tahay marka xukuumadda aad bay u dadaashay maasha allah hore u socdaan leeyahay muslimiinta dowlad deegaanka dhammaan waxaa leeyahay ciidul mubaarak dhammaan ciid mubaarak farxadka ciida waxaan halkaan u yimid inaan la ciido ciyaalkayga iyo faamilkayga waa meel aad u qurux badan waa duleedka magaalada jigjiga especially buurta kaaraamardha shalay magaalada waxaan tegay meel yar oo lagu ciidayey adoo ka alaab badnayd oo ka opportunity badnayd inta 70geeda ka fara badnayd tan laakiin ciriiri bay ahayd aad bay u cuseen laakiin meesha waa meel waafiya xogaa waxa u baahan tahay in waxyaabo intan ka badan la keeno laakiin waa meel aad u fiican aad baan oga helay kulli waa qurux badan tahay kaarna waxaan u doortay meeshan bilic bay leedahay doog bay leedahay saad daraadeed baan meeshan u imaanay indhaha lagu doogsaday horta marka la soo kaco waxaa dhici dhirta la tagay meel dhirta indhaha lagu doogsaday jira Soomaa marka wallahi alxamdulillah maadaama familygayga waalidkayga aabahay ummadda dhan muslimiinta la ciiday waxaan leeyahay ciid mubaarak waan leeyahay wixii muslimiin ah waxaan u nimaanay inaan carruurta ku farxad galino runtii Soomaaliland meel meeshan kamid ah ayaa ku taala Kaaraamardha meel u dhow maasha Allah deegaanka Itoobiya aad buu qurux badan yahay waxaan halkan u nimaanay inaan carruurtanada iyo anagu baan jooga ku soo dejisano halkan waxaan ka salaamay dhammaan familygayga hooyaday xaafadayada dhammaan ilaa odagayga kale inta in ka badan inay si qurux badnaan doontaan jecelnahay waa meel dalxiiska ku fiican aan isleenahay mar walba aad ku hirataan oo tagtaan walaal maanta ku soonahay buurta Kaaraamardha oo aanu nimaanay inaan farxad ciida ku qaadano halkan oo ah meel qurux badan oo dad fara badan oo magaalada jigjiga ka yimaadeen isugu yimaadeen oo farxadda ku qaadanayaan wallahi hadii la maalgeliyo oo dawladda iyo dadka kale ee deegaankeena u dhashay oo ilaahay wax siiyay maalgeliyaan ay ka heli lahaayeen waxyaalo badan oo dhaqaalana ay lahaan lahayd dad kalena ay soo jiidin lahayd ayay noqon lahayd muhiimadna ay noo leedahay in la daryeelana waaba khasab xirsi cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarta ilaalinta buurtan iyo goobtan dalxiiska gacanta ku haya wuxuuna nooga warramay qorshaha mustaqbalka ee ay rabaan inay goobtan uga dhigaan goob dalxiiska ku habboon ujeeddada nagu kaliftay waxay baahi jirtoon dhanka dalxiiska inaan dadka ku promote garayno oo goobaha dalxiiska kor loo qaado runtii goobtan aad arkaysaan waa goob taariikhiya oo geeska Afrika oo dhanba caanka ah dalkeenana aad goob muhiim ugu ah kolka runtii goobtan annagii inama kale ayaa hadafkan ka dambeynay hadafkan saad arkaysaan hadda wuu hirgalay inkastoo aan ugu talagalnay mashruuc weyn oo ballaaran inuu yahay oo 3 phase buu ka kooban yahay hadda waxaan wadnaa fiiskii koobaad oo ah madadaalo horta goobtan dad fara badan baa shaqo abuur ka helay oo goobtan hadday waardiye ka noqotay haddii dadka meelaha goobaha ay u baahan yihiin tusaya buuraha tusaya kolkaa dadkaas waxoogaa yaroo aduu qoyskiiba 20 riyaal ay ka qaadaan baa jira oo naftooda ay ugu waxayaan goobtan waxaan leenahay in dadku ay ku dhiiradaan oo yimaadaan maadaama goob taariikhi oo muhiim ay tahay waagaag warkii waa naga inta aan soo gabagabeyn aan idin xasuusiyo qodobada wararka ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti oo markii shanaad ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi
golaha doorashooyinka qarankuna waxay sheegeen in ka badan 36 milyan oo qof ay isku diiwaan geliyeen codbixinta doorashooyinka lixaad ee dalka ka dhacaysa bisha daawadayaal warkii telefishinka qaranka dalkuna waa naga intaa waad ku mahadsantiin daawashadiina nabadgelyo